walaalahay waan jecelahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan xasuusinayaa waxyaabaha Ibraahim calayhi salaam abuuna ilaahay weydiistay waxa kamida rabbi ij'al hada baladan aamina warzuq ahlahu min ath-thamaraat. ilaahu baladka nabad nooga dhig. ilaahay waa ka aqbalay baladkaas ma ku ahaa ilaahayna nabad buu uga dhigay. markaas warzuq ahlahu min ath-thamaraat markaas irzaaq weydiistay. nabiga sallallahu alayhi wasallam adduunka nimcada adduunka waxa kamida amniga man asbaha aaminan fi sirbihi mu'aafan fi jasadihi عنده قوت يومه فكأنما حيس الدنيا بحذافيرها. qofkii nabad ku seexdo oo ku soo toos isay qoyskiisa oo caafimaad qaba oo maalinta wax cunay hela adduun dhawaa haysta. amnigu waa nolosha dhabta ah weeye ee ummad ku noolaato ama haysato. wax kale oo markaa wixii kale waa mardame. ummad Soomaaliya bil Ramadaan weeye waxa ka dhacay xamar dagaal. waxaan leeyahay dadka walaalaha oo muslimiinta ah ee dawladda iyo cidda ka soo horjeeda iyaguna mas'uuliyiinta ah waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga shaqeeyo, in la ilaasho dhiiggan daadanaya. war waxa ogaataa dagaal waxa weyn wiil baa ku dhintay weel kuma dhasho. nabad ayaa naas nuuga leh. Soomaaliya waa harag sagaaro iga kacmooyo iga durug ma leh. waa harag sagaaro iga kacmooyo iga durug ma leh ama waa sagaaro laba tun oo la kala qaado ma leh. Soomaaliya waa dad walaalaha, waa dad muslimiin, waa dad isku mid ah. dhiigga daadanaya wuxuu noqonayaa xarbul fitna. waa kugu dhimay oo ka dhimay khayr laga heli maayo. meeshu dhiig ku daatana waa gubanaysaa, waa ololaysaa. waxaan dhihi lahaa dawladda iyo ragga ka soo horjeeda mas'uuliyiinta nabadda ka shaqeeya. ilaahay ka baqa. ha loo hoggaansanaa nabad ayaa naas la nuuga leh. dawladda waxaan leeyahay maadaama idinka awood iyo ciidankii aad haysaan inta wanaag raadin ka dhaan iyo nabad raadsha xabad xal ma aha. waa shay ugu dameeya oo qofku adeegsado. waxaan leeyahay mas'uuliyiinta raba inay bari ummadan hor galaan oo xukumaan siifigiina yuusan dhiig noqon iyo dad la dilay iyo dad la laayay oo aan la isu qabsan. waxa way siifiguna ha noqdo kuwa nabad wax ku raadsan iyo wanaag. waxaan idin xasuusinayaa dagaalkan Soomaaliya burburkeedu wuxuu ka bilowday dawlad iyo jabhado rag mas'uuliyiin oo isgansaday. kadibna waxay noqdeen jabhado. kadibna xabad baa bilaabatay. xabadii Soomaaliya waa lagu burburay. waa ka dhibaatadii ka dhacday. hadda qof kasta gurigiisa markuu xasuusto dhibkii gaadhay iyo qabuurihii guryaha gudaha dadka lagu aasayay iyo sida jirid uga faa'iideystay wax naxdin leh. walaalayaal xasuusta dhibta Soomaaliya dagaal uma baahna. Soomaaliya nabad baa u baahanta. maxaa Muqdisho dagaal ka dhigay? wadamada gobolada kale waa nabad. waa aqal xumo. waa la wadaagaa dawladnimada. waa la wadaagaa masiirka ummadda. walaalayaal dagaalka hal joojiyo. xasuusta gabaygii markii burbur ku dhacay waxaa ka mid ahaa allow yaa darsigii naga khaldamay diirad ku iftiinsha. allow yaa dabaadiga hariyo degalka noocaysha. allow yaa hub ideelkii ku rida dawlad gacanteeda. allow ninaan danta guud aqoonina doqni waxba u sheegin. walaalayaalow hubkaas ha laga daayo shacabka masaakiinta oo sooman. magaalada nabadeeda ha laga shaqeeyo. war aawa dhaqankii, war aawa siyaasiyiintii kale oo dhexdhexaadkeed, war aawa culimmadii, war aawa ganacsata, war aawa shacabkii. war maanta xamar nabadba xabad uma baahna. war waxaa kuwaana qaadataan war Liibiya maxaa ka dhacay? war maxaa ka dhacay meesha la yiraahdo Yemen maxaa ka dhacay? war maxaa Ciraaq ka dhacay? war maxaa intaas oo wadan muslima goortii la ismucaaraday la isfahmi waa dhibkii dhacday wali waa la joogsan waay. dawlad shishay idinma rabto. muhiimadeeda waa qayb iyo xukun. waxa weeye dad muslimaatihiin bil Ramadaan baa ku aqligu ha shaqeeyo. dawladana dawladnimo laga rabaa iyo sharaf iyo mas'uuliyad. ragga mas'uuliyiinta ee mustaqbalka raba in ummadda xukumaana iyagana sharaf iyo wanaag baa laga rabaa. ilaahay ka baqa. ilaahay u noqda. dadka dhimanaya wallahi aakhira waa la isweydiinaya oo dhibka dhacaysa waa la isweydiinaya oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala guryihiina iyo caruurihiina dhibta ku soo noqonaya. haddaa wanaag samaysana waa sidoo kale. marka waxaan leeyahay oo idinku baaqaynaa annagoo runtii jecel oo ka nabadda ummadda Soomaaliyeed, midnimada ummadda Soomaaliyeed ha laga shaqeeyo wanaagga iyo nabadda. xabadda ma yeedhicin aqligu ha shaqeeyo. ninkii in xabad dhacdo illa tanaasul khayr badan.
إن حبذا دعضة إن لقد دونتو إن لدونتا خير بدن يا دب هنوسعل دمر كمساكين تو ياعي أولاد يا عيسى دتك دب يا لوسعل ولا على عقل وهالشقيو